سيادة صعتان تحسن كون يسبدل باقي داي دالك يسبدل كاس deegaanka Soomaalidu dadka ka faa'iiday baan ahayn inagu isku suuq gama dhicin dalka oo dhan meelood dad horli ay yimaadeen oo isbedel horli oo ka dhashay oo waxay dadku tabanayaan wax saddexdaas sana la xiriira uu yahay laakiin wax 7 sano ka horreysay dadkina leeyahay baan haysta leeyahay aan ahayn way jiraan deegaanka Soomaalidu kale sanad ka hor dagaal baa ka bilowday dalka dagaalkaas oo maanta sanad jirsaday marxalad kale fara badan soo maray bishii August waxa laga soo baxay gobolka Tigray loo oran jiray oo ciidamada ka soo baxeen duruufihii jiray awgeed bishii ku xigtayna iyagii baa weerar soo qaaday oo qabsaday qaybo kamid ah gobolka Xamaarada iyo Anfarta xogta guud ee la xiriirta dagaaladaas maadaama baraha bulshada taalo oo xogta guud waa wax saacad iyo daqiiqad qof walba meesha uu fadhiyo telefonkiisa uu kala socdo weey halkay marayso anagu waxaan aaminsanahay in Tigray soo qabsada wadan oo ahayn soo laabta waayo inay ka waantoogayaan fikirkoodii hore ee ahaa dadka idinku dawladda u sameeyay dadku waxay soo sameystaan la xaajooda inay ka waantoogayaan ma qabno shakiga noocaas ah waxa si cadeynaya xalay wixii dhacay Washington baa si cadeynaya in xalay aad sabab dadku la saxeexdaan waraaqo intay u yeedhaan yiraahdaan kaalay oo waxa urban sameeyay Ethiopia Federalist League la saxeex shakiga aan qablahay meena waan toobine way ku siin daaladii Soomaalidu dad ma aha cid aan wadano man geen karnaado inuu fikirkaas ku jiray cadahay wax soconayna ma annaga waxaan oo qorshaysan markaa in deegaan ahaan maadaama iyagu ay deegaan leeyihiin aan deegaan ahaan ana ogolaanin cid dambe waa sabab timaada oo halka maamul soo dhista ama ciidan keenta qowmiyadeed ciidan qaran oo heshiiyay mooyaan ciidan qowmiyadeed oo socda oo halkan soo gala in la dagaalamo ay noo qorshaysan waxaan aaminsanahay inaan haysano xoog lagu filan oo Tigray aan ka yarayn oo qabsan kara saadaraadid aroorta Tigray waa sabab ku socda leeyahay waxa ogaataan in Soomaali sabab ku socotaan aad maqlaysaan oo galis oo la galayo oo intay jilahad dawlad lagu noqdaan oo dabreesid qabsadaan oo xirooyinka qabsadaan ay taangiyo soo qaataan ay diyaarado soo sameystaan iyadoo dawladda lagu soo noqoto jijiyo ku dagaalamo maray dhacin inta ogaataan taas ayana loo go'aansan diyaargarowdeedna waan wadnaa ee dhaqaaleedna walba saadada wax laga boqo wax laga cabsado toona ma jiraan haba yaraatay marka fahal la'aanta mooyee wax dhibaato ah oo inuu hareeraysan runtii ma jirto taas waa dhinaca diyaargarowda xagga xukuumadda dhinaca siyaasadda in hay'adihii dawliga ah sidoo u shaqeeyaan arrintan lagu dhawaaqay hadda xaaladda degdega ee dalka si guud baa lagu dhawaaqay laakiin anaga deegaankana xaalad degdega wax nagu kalifaami jiraan marka inaan wixii xumaanana iskaga ilaalino arrinta xaaladda degdega maadaama awood dheeraad ay nasiinayso aanan ka badbaadina oo aanan u adeegsan xaaladda degdega balaya ay jirin inaan anagu ku abuurino ama dad aan ku ugaarsanin ama urro ku ciqaabin inaan iska ilaalino baa anaga loo taal hadda xaalad waa caadi balaya ma jirto deegaanku waa sidiisii dadku inay si ahaayeen faakaysiga ku jiraan laakiin ciddii awal hore shuruucda iyo nidaamka iyo iyadoo burinaysa ku afgaraasan jirtay maxkamaddu sida ma oran iyo waqad ma haysta wixii cidii ahayd hadii cadeyn lagu helo la iskaga qabto iyadoo lagu gardaroonin ma wada adeegsan doonaa dhinaca kale in ilaa duruuftu keenayso dhaqaalaha inaanan xanibin isagana wadooyinka la dhiso biyihii in la sameeyo mashaariic Sacuudi inay socdaan way dadku siyaasadda mucnaa noloshina way socotaa dhaqaalaha dawladdu ay wadana qayb buu ka yahay deganaanshaha deegaanka laftiisa marka miisaaniyihii iyo dhaqaaqii loo xeeyo shaqooyin kale noo yaalo abaarahan hadda daawo iyo ka jira iyo meelaha kale ilaa isniinta aan ka fariisan doono in dadka gurmadkiisa iyo shaqadiisa wixiisa loo wado si caadi ah u shaqeeyno inaanu masiibo ka dhigano dagaal baa Sacuudi iyo masiibo jirtay oo aan shaqooyinkii waajibaadkii noo yaalay aan qaban ma aha dawladdu waa in isbeddelka hadda la siibay dhaqaaq fiican iyo xafiisyadii waxa ka muuqda sidii hore iska duwan dhinaca bixinta xoogga la saaro dhinaca diyaargarowga arrimahaas aan ka oran lahaa diyaargarowga waxa qaybka iyaduna wacyigelinta shacabka iyo wada tashiga oo tan saaka aan ka u fadhino inaan sii wadnana ay loo baahan yahay marka dabaylo siyaasadeed ay bilowdaan deegaankeena waxa dhaqan noo ah in
laga hadlo aan tashanno aan midowno aan wada hadalno aan isu nimaadno aan qamaha isqabsanno waxaan taa ku sheegayaa kow maanta Ethiopia siyaasad kama socotee dagaal baa ka socda xabad baa la isu wataa qoryaal isla dhacaya kolkaasoo kale cadow iyo garab baa la kala yahay mucaarid iyo muxaafid lama kala معارض المحافظ واتي هذا دورشي والي بيتو كله واتي هذه دورشي تو كفي عن سي قبل لهين انت لا ترتبو او لس دلعيو مدحيوها سوخميه لا يراهدو ka dambe qofkii guuleystay inta sanduuq loogu rido la isqabsoo gacanta isaal la yiraahdo ya mucaarid muxaafid la yiraahdo marxalada mucaarid muxaafidku waa taawiya marxalada xabad la isu wato oo tigray haday qabsadaan ay ku dilayaan kala socdaan uu ku leeyahay xageed galaysa aan ku dilayay shay noolanaysa cadow aad is haysaan iyo cid garab kuwa uu dadku qaybsan yahay kolkaasoo kale marka in lagu maxaafsado mucaarid muxaafid madaxweynaha adaa oo sida hadda maadmaan ka socota meelaha laga wado ujeedada lagu leeyahay waa idin sharxi doona mucaarid muxaafid gacantaan isqabsan horta isqabsan karnaa marka hore kow su'aal aan isweydiinay anagu ra'yi jiro waxaan ku eedeynaa faham darro siyaasadeed oo aad u ballaaran 40 sano iyo ka badan inay keentay fursad kasta oo timaadeen si khaldan u fahmaan fursad kasta marka maadaama uu faham darro iyo taxliil darro siyaasadeed ay jirto oo dadka ragaysaya dadka haddana waxaa lagu leeyahay wada tashano saasay tahay kaadi badan waa lagu gobolyaala la yidhi cid alaala ciddi wada tashi diyaar u ah inaan la fadhiisano diyaar baana cid walba weliba meel fagaarayaal odayaasha iyo guurtiyu joogaan in lagu wada hadlo oo waxa lagu midoobayo waxa lagu wada hadlayo si cad ay ahaadaan